محمود وانيك سجال سرة وبدأوا كحجان وشيغني ودكيسة يديجان كيسة كتاجنيد عبشة يقللاسو كؤادن معمول كواسق بدأوا كحجان وانيك أودي ويهال ما نينجلين كده إنه دكيسة السوق كانوا تبوا حجيسين أنت جود الصوماليات كارهان تذكرير كده يرد جبلان بركة عقلنا سلام يا بحث صحافة سلام كديب شركة كان جرائد مانتا وحود الرين هاي مالمهان وحان لوسو بدنيي وعن برحب بالشدة كارار كيني ورقضا ويفتاء ووح أهميته يوح شرعيات إليهين منا أنا العرق ومارك تاي دقموين كجوار كجدو قيبة كمية مارك تاي لوسو تطوريو وحنا مرك إن سيدت كرير جبلان أما رير جدو ودوني هنا يهلان دولة نمدودي هي محوها هاي هنا يهلان سيستم دولات وشرعيات كل سنة يهلان أضغط ما يب سي أي سن معناها أي أوقف جبلين ورقدها نوع عاسة هنا وعد هنا أركتي على كقمنا ولا يصير الأقسام تهيمبو محوها هاي سيستم كشرعي دردا ولا بيتبان كسنة كسماية فردية وحاول وحومان ليت كيسي وجود بيه دمالي لبي يلا كي بيشي أغسطس هذا صوت أحنا صارت كان كجرنو وقت جاس وقت جا هذا عن جوجنا وح شرعيات وهايستان مجرته هرينا نمان كوي ميت سيستم ينظام هشيس لويا ما يصنعين نمان وحيسكاين جمهده وأيوة جمهده يميت ضد كرير جبلان دل يدبد ميري جوان وحيو هالجمعين مر هريا مر ضبابا هنا يهلان دولة جبلان اللي يرهدوا وأيجي إليه ومتشدد كان يديجان كان تي أيضا هيد بانا ولي لوسي مشغول سيء هاي أيضا رميل في عام مرة ثانية جبجبة وحنا رجعنا مال مع كم ده عن فوقين إن إذا كريت جبلان دولة يكون على وضعنا أي عمود يكون استان أي مارك تاي هلي دوران تاسمر كواسداس وحاجة مركز نمان سجال سنة مدة فدي كسمايو وكسو جودو محوها هاي ديجاندان ومعلومات دنبال لودي بلود ودن بيسميلها دقموين قبل كده دقموين كمية جوجي كواس أو بريها هادبو وانت ورقة سوقرو هذا كذا مع أورانا محوها هاي ويقل دريدا وينقص وقل دنتي ورقدي أيها قريب كمية بامان تقربار يسوق جاري سيدي كوي بار داري يبور ويا مالها لميت كا ويفتضى هاي وتجي يوم بيكون هذا قربار يمين لمعنى يهين وعرفنا مركا إن أنا الجوم الوريرين halgankii iyo qorshihiisii socdayna uu sii socdo waxa kale oo rabaa inaan dadka reer Jubbaland meel kasta ay joogaan baan ugu baaqo inay intii laga gaarayo dawlad Jubbaland oo la dhisto dadka reer Gada inay sameystaan maamul heer gobol iyo heer degmo ah oo ku yimaado rabitaanka bulshadu oo odayaasha dhaqanka ay ayaga garwadeen ka yihiin ayaan ugu baaqayaa inay sameystaan dadka maxaan ku raahdaa aanan deegaan iyo dad midna metelin ee warqadaha qoraya si ayaguna la isaga dulqaado oo loo bar awoodooda iyo tabartooda qodobkaas marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshada reer Gado inay qodobkaas qaataan taas marka intaas uga gudbo waxa jiro nin sheegto madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo maxaan ku raahdaa muddo hadda 2 bilood iyo wax lagu daray joogay meesha la yiraahdo Dolow kana soo joodo deegaankan horeyna uu ahaa xildhibaan heer federaal ah oo la yiraahdo Maxamuud Siid Aadan ehel aan nahay oo macnaha dadka Soomaalida qaraabo isu xigaan aan qaraabo isu xigno balse ku guul daraystay totally waxa uu sheeganay markaan tusaalooyinka gaaban ka bixiyo Soomaalida waa beelo iyo gobollo waxayna ku dhisan tahay wax la yiraahdo awood qaybsi ama 4.5 Maxamuud Siid Aadan dadka uu ka soo joodo asaga uu ka dhashay oo degan from Dolow ilaa Ras Galbooni ayuu matalaayo kursiga uu ku fadhiyo madaxweyne ku-xigeenku ku matalaa Maxamuud wuxuu ku guul daraystay totally matalaada ayada ahayd tusaalaha nool oo lagu tilmaami karana waxa weey magaalada Kismaayo oo xafiiskiisa uu ku yaal muxuu ahaayay waxa ka dhacay xadgudubyadii ugu weynaa oo dad bini aadan lagu sameeyay dadka birmagaydada oo la iska dilayo dadka hantidooda la dhacayo oo guryahooda cagafta la gelinayo ayadoo habeeleed awood dawladeed loo isticmaalayo maxaan ku raahdaa kuwa gabdhaha gacmaha laga gurayo kuwa xabadaha lala dhacayo dhammaan waa dadku metelay habeenaya maalin baraha bulshada taagan
maalin gelinkeedna qof cadaalad loo geeyay ama saldhig loo geeyay ama su'aal laga weydiiyay ma jirto bal iska badaa in ayagaas wax u qabtee asaga ayaa wuxuu ku yahay halka uu joogo dulmane waa qodobka xigo oo maxaan ku raahdaayay uu kaga bedelan yahay isteediyada madaxweyne ku-xigeenada ka jiro ee shanta isteed ee Soomaaliya maxamuud waxa weeyo waa madaxweyne ku-xigeenka aqbalay oo ku raali noqday nin asaga la mid ah inuu magacaabo oo magacaabis uu ku joogo saacadu rabana uu xilka ka qaadi karo saacadu uu rabana maxaan ku raahdaayay uu adeegsan karo oo ku shaqaysan karo halka madaxweyne ku-xigeenada isteediyada ka jiro ay ku yimaadaan doorasho baarlamaani ah kadibna ay ugu adeegaan ayagoo awood buuxda haysto oo hab doorasho ku yimid ay bulshadooda ugu adeegaan iyo ku qancay in la magacaabo waa dhibaatooyinka haysta dhibaatada kale oo haysato oo madaxweyne ku-xigeenada isteediyada ka jira maxamuud siid oo ga bedelan yahay waxay tahay waa ninka raali ku noqday madaxweyne ku-xigeen labaad oo hal tuulo ah oo Jubbaland ku taalo oo dadkiisu degan yahay oo uu matala aysan jirin ninka ku raali noqday waaye in awoodiisii loola qaybiyo oo maxaan ku raahdaa madaxweyne ku-xigeen labaad laga daba dhiso ayadoo asaga awoodiisa lagu dhimayo maxaan ku raahdaa awood qaybsigiisa iyo maaragtay sharafkiisana lagu weeqay waa ninka ku raali noqday oo awoodi waayay inuu yiraahdo war deegaanka intaan la eeg iyo dhulka intaan la eeg baan matalaaye ninkan odag oo igu daba wadaan xageebuu matalaa oran waay maxamuud waa ninka 9 sare oo madaxweyne ku-xigeen uu sheeganayay uu dadkiisa iyo deegaankiisa ay ka taagnayd cabasho iyo qalalaaso ku aadan maamulku asaga madaxweyne ku-xigeen ka yahay waa ninka awoodi waayay hal maalin gelinkeed inuu dadkiisa isugu keeno dib u heshiisiin maxaan ku raahdaa iyo waxa ay tabanayaan bal in miiska wada hadalka looga wada hadlo oo uu yiraahdo war bal dadkayga waxbay tabanayaan hala dhageysto sidaa darteed maxamuud asaga ayaa wuxuu dulmana ku yahay halka uu joogo iyo taytalka uu sheeganayo iska daa kuwa asaga ka hooseeyo oo asaga maaragtay taytal uga hooseeyo asaga madaxweyne ku-xigeenka sheeganayo oo dadkan basiirkooda inuu u sareeyo aaminsan ayaa wuxuu halka ku yahay dulmane qof dulmana ahna qof kale waxba uma yeerin karo sidaa darteed waxaan cadeynaynaa maxaan ku raahdaa sharciyad ay wax ku magacaabaana inaysan haysan awood iyo quality uu maxamuud wax ku magacaabana inaysan jirin waxa uu hadda meeshaan la yimidna inay tahay qalqal loo soo dhiibay oo la yiri orod dadkaaga qalqal ka dhax abuur oo midiyaha isugu dhiib asaga iyo kuwa kale oo la mid ah inta ayadeen uu raali ku noqday waxaan rabaa markii aan dadka reergeeda ugu baaqo walaalayaal waxa aanu ka hadlayno waa basiirkiina iyo sharafkiina iyo karaabadiina sharafkiina iyo karaabadiina qolo u yeerisa ma jirto in lidin yeeriyana suurtagal ma ahan adinka ayaa la rabaa inaad maaragtay go'aankiina iyo halkaad u socotaan aad cadaysataan bah iyo boqor odayaasha gabdhaha iyo dhalinyarada iyo aqoonyahanka waxa la idin kugu baaqaya dal dibad meel aad joogtaanba aan iska dulqaadna dadka annaga naga dhashay ee dulaysan ee meeshii joogeen aan waxba ka ahayn halka ay nala joogaan doona inay midiyaan isugu kana dhibaan intaas aan rabay inaan bulshada ku baraarujiyo